Asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal kale. Maanta waa maalinkii 7 laakiin muuqaalkan waa muuqaalkii 6. muuqaalka saa ogtiinba waa in la edit gareeyo marka hal maalin behind awayaan. Waxaan rabaa maanta inaan sameeyo bariis cad iyo khudaar. Marka khudaartana waxaan ka sameynayaa mushroomka af Soomaali ma aqaan wax lagu yiraahdo. Aniga waxaan maqli jiray markaan yaraa in la dhihi jiray waa barkinta waraaba. Marka ma aqaano halkan dukaanada lagu iibiyo waa la karsadaa. Marka taas ayaan rabaa inaan kariyo. Halkan waxaa igu karsamaysa sharbadii. Waxaa hilib ku jira sharbad marka hilib ma karinaya. Bariis iyo khudaar iyo waxaan sameynayaa macmacaan yar oo qabow oo mangi avocado aan ka sameeyay fridge kan gashani. Bariiska iyo khudaarta sharbad salad iyo sharbadaas intaas ayaan sameeyay. Hadda basasha iyo yara shiilan waxaan ku daray kamsar toon iyo qaji iyo soo shiilay. markii isku shiilantana waxaan ku daray wax yar soy sauce, wax yar ketchup colorna way siinaysaa, macaan way siinaysaa. Waa kan waxaas aan jarjari weey waxa idin leeyahay ma garanay English waa mushroom af Soomaali laakiin muuji wax la dhaho. Waxaan ku sameynayaa barbarooni saddexdaan nooc intaas ayaan isku shiilayaa. Mana aad uma jilcinayo oo inay burburto ma rabo. Marka insha Allah aad okaas geedkaas weeyaan ma aqaan waxaas. Okaas bas marka wuxuu dhadhankiisa ma aqaan horta cuntay intaan cunino sida waxa kaliyo kale weeyaan oo dhadhankiisa leena kaliyo cunayso kale ayaa dareemaysaa uu eegyahay. Hadda okaas meeshaas ku soo ketchup iyo wax yar soy sauce. Khudaarta hadda la gab si fiican isku shiil. Bariiska geeska ayuu diyaar u noqonayaa wax yar ay hadhay isagana. Kadib miiska ayaan ku soo diyaarin ka bilaay tawfiiq. Inta muuqaalkan ku soo gaaro subscribe like hayga ilaawin. Wali hargab ayaa bismillah. wali hargabkii si fiican ugu dhamaan marka insha Allah maalmaha soo socota ilaahay qadar muuqaalo ayaan soo gudbin doonaa insha Allah oo daily Ramadan aan ka sameyn doonaa. Hadda maalmahan hargab baan hayay alxamdulillah tawfiiqanahay. Hadda waxaan ku daray qayb yar oo ka mid mushroom on rabina iska daaya ee haddana xasiri maabis kulli soo saartay iska wada kari. Waxaan ku daray kaas intaas ayaan iska sameynayaa ila socodsiin ku soo baxdo arkisi insha Allah maalin kasta hilib iyo digaag ma cuni karo iyo fish horta wali ma karin bilixdan inta weegan ma karin fish laakiin insha Allah waan sameyn doonaa haddii Ilaahay qadaro. waxaan ku dari doonaa wax yar oo maraq digaaga iyo wax yar oo filfil insha Allah si oo filfisha waxay siinaysaa kulayl iyo macaan naga dhigaysaa. Marka insha Allah okaas sambusa iyo quraac iyo waxaas midna ma sameynin. Sambusaha wuu naga sii dhamaanayaa maalin dhawaan dalbaday laakiin insha Allah hadda maadaama fiicanahay sambusa maalmaha soo socda sambusa iyo ay la wadaagi doonaa maxaan ku rahdaa burka sambusa lagu qabsado lagu cuno insha Allah inta waa soo sameyn doonaa. Inkastoo aniga aan ma aragtay maalinba wax aan sameeyo maalin casho caadi aan sameeyaa maalin casho macmacaan maalinba wax ayaan sameeyaa. Sababtoo aniga badanaa madbax waxaan galaa saacad markay ka dhiman tahay ama saacadii badh ayaan galaa. saacadii badhkaas way iga badan tahay inaan sameeyo dhowr shay.
markaa dee waxaan rabaa wax lana cunayo oo dhamaanayo oon khasaareynin iyo waxaanan kuna daaleynin. Markaa badanaa waxaan sameeyaa wax macquula. Marka insha Allah maalinkan sameeyo sambusaha iyo kackac waxaas sharbad ma sameynayo. Marka aan sharbada sameeyo ma sameynay sambusa iyo bur iyo waxaas. Markaan casho sameeyo fiican waxaan sameeyaa cabitaan. Markaa macmacaanka iyo sharbada iyo sambusa waxaas oo dhan maqnaanaya. Markaa marba wax weeyaan saas ayaan ka dhigtaa. Markaa wakaas hadda saxanka ayaan kusoo shubanayaa miiska ayaan keenayaa insha Allah. Dee wakaas saasay kusoo baxday. Maalmaha soo socdana insha Allah after bal dhammaystiran insha Allah idin loo wadaagi doona.